السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا FC TV برنامج كعوة وحوك سابسية هي وما حي كلسوني ذا لو قبوا حلبان ذا كسر شيء ذا قبل هذا وقوي يولي بالسياسيين تا قبل هذا كسر شيء ذا يكتر سندورة الفدرال كالصومالية وحاس صوتر يا ضد بدن أو كم ذا يجا ولا بنا يا قوسنا يا كلها بنا يا سوماليان أو شيء يا إنه ماشي وشوجين دنو ذا قاركا soo dhawaada markale FC TV waxaad la socodsiinaya barnaamijka anigoo farxaan raac waa qorayaasha dadka anigana waa awowgay 3 sano ka hor laascaanood waxa ku soo kala baxnay awowgay Yaasiin iyo Mahad baan anigoo ka fikir duwan oo ku saxsanaa marka fikirkayaguna koodii ay maalinta taagnaayeen waxay kaga saxsanaayeen martay labadii fikir oo midaysan baan maanta xaq ku taagnay Soomaaliland waxa ku suntan tahay ana hadda labada dhagood furo aniga farqiga noo dhaxeeyo ku sheegay aniga waxa ku suntanahay dawladnimada adigu aad shalay toola cad caanaha iyo lagu siinayo muuska ayaan anigu keenay xasanow aan labada dhagood xanuunayso dibadaha la qabo xanuunkaaga yaa anagu reer Soomaaliland nahay halkan baan leenahay halkan bay beeraha ku yaalaan halkan baan abtiyay inay ilmaabti ku nahay meel kasta oo joogno dhinaca baan wada soconaynaa dhinaca wanaagsan baan soconaynaa madaxweyne Soomaaliland ha noolaato waa wasiirkii hore maaliyadda ee dowladda federaalka dibadaha la qabo xanuunkaaga waa xildhibaan aqalka sare waka maanta naqtin maanta dowladka aqligu hashooy bari cadifada waa xildhibaan federaalka وحلبان أغلق السرعة marka waa run oo qaraxidii weynaayd ka dhacay maxayday soobe way kuwa kale may dhicin laakiinse waxa weeyaan dawladdu ma u adeegaysaa dadka haddaan u soo noqdo markaa daaraha badan ee la dhisayo boqolkiiba Soomaali hadday ugu badan tahay 5 maaha waxa daaruhu dhisanaya inta badan daaraha waxa dhisanaya laga yaabaa qayb ahaan dadka dibadda joogeen wadanka guud waa nabad hadday magaaladu nabad tahay ma ay joogeen ciidamadan jidadka jooga soo dhawaada daawadayaal markale waxa la yaab leh oo ah sida lagu aaminay dadka noocaana oo kulligood u imaanaya siday ummadda Soomaaliyeed agardaamo ugu sameyn lahaayeen dawladnimadu ma ahan wax qof walba lagu aamini karo sidee ra'iisul wasaare loogu aamini karaa qofka sidaan u hadlaya anagu reer Soomaaliland nahay halkan baan leenahay halkan bay beeraha ku yaalaan halkan baan abtiyay inay ilmaabti ku nahay meel kasta oo joogno nin gooni isku taagga Soomaaliland taageersan oo Soomaaliyana ka ah ra'iisul wasaare ku xigeen ama wasiirka maaliyadda ama gudoomiyaha aqalka sare ama xildhibaan ama wasiirka beeraha ama xildhibaan maamul goboleed inima inoo balana idina nagama maarantaan anana idinka maarnaa waxaan leeyahay maleegay waxaan la maleegay inima inoo balana idina nagama ku taageeyo xasanow aan labada dhagood kugu celiyo Soomaaliland xasanow aan labada dhagood kugu celiyo Soomaaliland la'aanteed Soomaaliland ka jiri mayso nafsar dambe oo saku nafli oo Soomaaliland ku xadgudbo halkan imaadana ama Allah waxa ku maray inaan shan ku taageeyo waxay difaacaysaa ayadoo xildhibaan federaalka ah maamul sheegtay inuusan Soomaaliya ka mid ahayn ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Saalax waa nin reer Somaliland gudoomiyaha aqalka sare waa nin reer Somaliland wasiiradii hore iyo xildhibaano reer Somaliland ahaa oo federaalka ahaa ayaa Somaliland uu dib ugu laabtay ra'iisul wasaare ku xigeen hore laabtay mid kala laabtay ayagii oo dhan kulligood waxay u joogeen danaha Soomaaliland
soo ma dhici karto ictiraafka somalilan ee sugaysay ee raadinaysay in laga dhex raadinayay shaqadaasna ay hayeen nimankaas ninka sidaan u hadlaya miyaa soomaaliya dhinaca wanaagsan baan u soconayna waxaan leenahay madaxweyne kolley baanu laba shaar baan gashan oo xanuunayso waa ninkii caloosha xanuunayso dibadaha la qabo xanuunkaaga yaa annagu haddaan reer somaliland nahay halkan baan leenahay wuxuu ku leeyahay laba shaar baan gashanaa anoo somalilan u shaqaynaya ayaan shaarkii wasiirka maaliyadda soomaaliya aan xirnaa anoo raadinaya ictiraafkii somalilan nimankan aa arkaysid kulligood waxay wax ka bedelaan sharciga iyo maaragtay dastuurka federaalka waxay codkooda siiyaan qofkii somalilan u fududeynaya wax walba sida xasan sheikh wax walba ugu fududeynayo kale xasan sheikh somalilan far kuma taagi karo xitaa markay aqoonsadeen yuhuudda weli wax tillaabaa kamuusa qaadin waa arkaysaa koonfur galbeed tillaabuu ka qaaday puntland hadda faruu ku hayaa somalilan never weligiis faruma taagin sababtoo ah 36 cod ay haystaan oo xildhibaanada ayuu maaragtay wuxuu isleeyahay amaa weydaa horta iyay matalaan xildhibaanadan deegaankii laga soo dooranayay iyo dadkii soo dooran lahaa maba aaminsanaba inay dowladda soomaaliya ka mid yihiin marka maxaa maaragtay iyay matalaan codkan ay bixinayaan iyay ku matalaan kursigan ay ku fadhiyaan iyay ku matalaan qofay ku matalaan lama arko waa wax la yaab leh xildhibaan frimbi oo arrintaas ka hadlayna waa lagu qabsaday raaligelin deegaan doorasho lahayn oo deegaan doorasho u aada aan lahayn oo dad uu matala aan ahayn oo barakaca meeshan ku ah oo asaga meel uu tagay jiray aniga dadkayga xildhibaan deegaan doorasho aan lahayn sharci maba ahaba xildhibaan sharciga maaha inuu fadhiyo kursiga xildhibaannimada ma aha sababtoo ah meel laga soo doortay lama arko dadku matalayay uma tegi karo nama matalay yidhaahdeen maysan soo dooran sidee buu ku fadhiisanayaa hadda waxaa loo gudbay doorasho qof iyo coda sidee ku imaan doonaan ayagu ma kula tahay doorashada qof iyo codkaaba in loogu talagalay in la yidhaahdo soomaaliya way kala go-day oo dhankooda lagama qaban karo caqabadda ay keeni karta waa noocaas madaxweyne xasan sheikh arrintan ma garanayo maaragtay sababta ay oga hoos baxday ama ay heerkaas oo dhan ee maaragtay loogu dul socdo oo shaqadiisii laga dhex ugaarsanayo ictiraaf laga dhex raadsanayo nimankan waxay soo direen rag badan oo aqoon-yahanaa oo ay ugu talagaleen inay boosas fiican tagaan sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda ra-iisul wasaare ku-xigeen safiiro wasiirada caadigaas iyo wasiirka warfaafinta wasiirka beeraha guddoomiye baarlamaan haddii guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya intuu baxo uu waddan kale u tago yidhaahdo somalilan ictiraaf siiya yidhaahdo waa la dhegeysanaya waxaana la ogaanayaa dowladdii soomaaliya inay maaragtay raalli ka tahay qaar ka mid a sababtoo ah guddoomiyaha baarlamaanka ma aha wax sahlan madaxweyne xasan sheikh arrintan aad bay oga hoos baxday iyo gardarro ku ah dhammaan qawaaniinta caalamka heshiisyada iyo shuruucda dunidu ay ku dhaqanto waxay ka dhigan tahay duulaan qaawan oo lagu soo qaaday qarannimada madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo dadeed ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxay caddaynaysaa ay cod dheer ku leedahay gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda ee loo yaqaano somalilan waa qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dunida cod dheer ayaan intaas ku gaarsiinaynaa kuna xusuusinaynaa soomaaliya waxaa ka go'an
inay qaaddo tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed xilligii taamkii madaxweyne farmaajo somalilan halkee maraysa somalilan ma waxaa jaanis siiyey xasan sheekh maxamuud mise ayaga maaragtay u halgamay oo waxay qabsaday aan fiirino 2018kii baarlamaanka somalilan oo doodaya xildhibaan jirde wuxuu ku hadlaya dhegeysta laga sheegayo 120 milyan bad la'aan maayaan nimanna geeloodu badda ka cabi maayo aan wax kale ku qabin meesha saamiga berbera ka helayna inaga abaa inooguma hayaan DP World bay ugu hayaan DP World ayaa intayna inaga tallaabsatay iyaga la xayato 19 ka siisay waxa la yaalo waxaanu dhaafisana ma jirto oo political capital oo raasamaala oo taariikhda inoo gala ma inaan dhaafsiisan DP World baa inaga faa'iideysatay oo Ethiopia la xidhatay Ethiopia maanta abaal inooguma hayso kii wada hadalku ugu wareegay taa ogaada wada hadalkii wuxuu u wareegay koonfur buu wareegay iyaga hoggaanka maanta haya shirka Brussels la fadhiyo qodob baa ku jira dawladdu ay ku adkaysanayso farmaajo ku adkaysanayo international community isay ku gorgortamayaan inaga hadalkiina badaayay oo specifically inaga nagu saabsan dawlad goboleedyada ka kaalay waxay u qoran tahay sida Somaliland waxa la siinayo in isaga la soo mariyo inuu isagu taakayo halkaas uu maanta gaaraan ku yiri ninka dhina ogaada hadalkii wuxuu u wareegay koonfur buu wareegay iyaga hoggaanka maanta haya shirka Brussels la fadhiyo qodob baa ku jira dawladdu ay ku adkaysanayso farmaajo ku adkaysanayo international community isay ku gorgortamayaan inaga hadalkiina badaayay oo specifically inaga nagu saabsan dawlad goboleedyada ka kaalay waxay u qoran tahay sida Somaliland waxa la siinayo in isaga la soo mariyo inuu isagu sida la socono madaxweyne farmaajo cunaqabateyn xoog la ayuu saaray Somaliland way qalantaa in la saaro sababtoo ah wadan doonaya inuu wadanka ka go'o dee waxa saxana ma leh cunaqabateyn waa in la saaraa oo dhanka siyaasadda maaliyadda ah hubka ah dhaqdhaqaaqa ah sababtaa dalku waa dal Soomaaliyeed marka ma is oran karnaa madaxweyne xasan sheekh ayaa jaanis siiyey sidaan la soconno agosto 25kii ma ahayd gooja cadda dagaalkiisii markuu dhacay oo hubka dhigista lagu suubiyey maamulka Somaliland oo hubkii oo dhan laga gacan maroojiyey ayaa waxaan oran karnaa waxaa saaxadda siyaasadda ku soo celiyey oo jaanis siiyey xasan sheekh maxamuud sidaan la soconno 29kii bishii 12aad 2023 heshiis lagu saxiixay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa isugu tagay halkaas madaxweyne Muuse Buuxi iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Kaahin iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Fiqi iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle waxaa la saxiixay halkaas Soomaaliya ay u saxiixday Somaliland in Somaliland heshiis iyo kontraktiyo ay la geli karto wadamo shisheeye maadaama aysan wadan madax bannaan ahayn oo aqoonsi aysan haysan in ay heshiis geli karto dowladda Soomaaliya ee mas'uul ka tahay loo ogolaaday maxaa dhacay marka ay maalinta ku xigtay MOU-gii ayaa maaragtay lagu dhawaaqay in badda Soomaaliya 20 kilomitir ilaa 200 kilomitir dhul ah Ethiopia la siiyey Ethiopia hub iyo gaadiid bay siisay Somaliland halkaas ayaa waxaa ka bilowday problemkaas haddaba aan dib u sii baxno kulankaas lagu saxiixay inay contract geli karaan Somaliland waxaa ka horeysay kulamo xasan sheekh maxamuud iyo Abiy Ahmed 12kii June 2023 xasan sheekh maxamuud iyo waa kulmeen Abiy Ahmed oo shirkii igad oo Addis Ababa ka dhacay ay ku kulmeen arrintan miyaa la bislaynay maxaa laga hadlayay haddana 10kii bishii 11aad 2023 waa 20 beri ka hor MOU-ga inta la maartay lagu dhawaaqin oo MOU-ga ee maartay Somaliland iyo Ethiopia aysan samaysan
ayaa abi axmed iyo xasan sheekh waxay ku kulmeen sacuudi african summit shirki ka dhacay sacuudi carabiya ee maaragtay african summitka ee sacuudi carabiya qabatay ah waxaa kulmay xasan sheekh maxamuud ismaaciil cumar geelle iyo abi axmed oo wakaa twitterkiisa kusoo qora arkaysaan maxaa u dhexeeya 20 beri baa u dhexaysa MOU-ga iyo saxiixa ee Somaliland xasan sheekh uu saxiixay inay maaragtay wadamo shisheeye contract la geli karto dagaalkii gooja caddana waxaa laga joogaa 4 bilood wax ka yar ayaa laga joogaa markaas macnaha u fiirso mar walba waxaa arkaysaa madaxweyne xasan sheekh inuu badbaadinayo nimankan mar walbana abi axmed iyo xasan sheekh inay saaxiib yihiin haddana saas ay tahay abi axmed soomaaliya lama jiro xasan sheekhna mar walba wuxuu jaanis siinayaa gooni istaag marka haddaan fiirino bishii 12aad 2025 19 xasan sheekh wuxuu la kulmay abi axmed booqasho hal maalin qaadatay ayuu wuxuu ku tegay meesha la yidhaahdo addis ababa oo abi axmed uu la soo kulmay 26 isla bishaas ayaa ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil netanyahu wuxuu aqoonsi siiyey somalilan waxaa u dhexaysa 6 maalmood aqoonsiga iyo kulanka maalinta qaatay ee abi axmed iyo ninka la yidhahdo xasan sheekh maxay tahay marka waa maxay jaanisyadan uu siinayo xasan sheekh maxamuud somalilan haddana haddaad sii fiiriso dowladda etoobiya aqoonsigii somalilan ay siiyeen dowladda israa'iil ma aysan ka hadlin way ka gaabsatay mana taageerin mana maaragtay cambaarayn afrikaanka oo dhan african union way cambaarayeen waa ka soo horjeestay kenya iyo etoobiya kama soo horjeesan macnaha marka xasan sheekh maxamuud labada wadan uu saaxiibka leeyahay oo dariska nala ah oo etoobiya iyo kenya ah oo mar walba uu ku laalaabto haddana uu saaxiibka leeyahay laakiin danaha soomaaliya aan garab taagnayn oo soomaaliya aan garab taagnayn maaragtay midnimadeeda macnaha madaxweyne xasan sheekhna ma waxaan oran karnaa marka lug baa u laaban waa maxay wax ku kalifaya inuu maaragtay nimanka maalin walba noo soo diraya dadka noocaana halkan baan abtiyey iyo ilmaabti ku nahay meel kastoo joogno dhinaca baan u wada soconaynaa ama ninkaan oo kale cambaaraynaya dowladnimada soomaaliya madaxweynahana waa tii lagu abbaaray isagu waa nabad dee hadday magaaladu nabad tahay ma ay joogeen ciidamadan jidadka jooga iyo baalahan yaalla jidadka way tegi lahaayeen waa xildhibaan dowladda federaal ka tirsan dowladda soomaaliya ayuu wuxuu leeyahay soomaaliya nabad maaha u leeyahay oo dowladda soomaaliya nabad ma sugi karto wuxuu dhaliilayaa dowladnimada soomaaliya si loo yidhaahdo soomaaliya nabad maaha somalilan garay u leedahay inay go-do shaqu meeshu fadhiyaa bilaash ma fadhiyo waa isku mid asagii iyo dubbe horta wax shaksiyahoo aniga ii gaar oo culaysi ma jirin xilli iyo xurmo iyo deegaan iyo wax walba waan haystay weliba xukuumaddan cusub ee doorashada qabanaysana wax laga yaaba dadka ugu firfircoon inaan ka mid noqon lahaa macnaha wuxuu ku leeyahay markii la weydiiyey dubbe waa maxay sababta soomaaliya oo goosato somalilan ugu laabatay wuxuu ku leeyahay arrin shaksi ma ahayn waa qadiyad soomaalinimo ay gu jirtay haddee ogow wasiir buu soo ahaa soomaaliya federaalka ahaa xildhibaan baarlamaanka u ahaa u fiirso haddana qadiyad soomaalinimoa ku jirtay oo meesha wuxuu u joogay basaas buu ahaa meesha basaasiin baa ka buuxa hadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax ma ninkaanu ka liitaa macnaha abwaanadii ay soo direen ayaa basaasiin ahaa argagixiso ahaa
dagaal siyaasadeed iyo mid sirdoon labadaba way wadaan Soomaali maaragtay wax maaragtay cad oo banaanka yaalo way hadeer waxay ka dhex ugaarsanayaan maamulkii ka soo goostay ee waqooyi bari oo waatana xildhibaanadii ka tirsanayd dib ugu laabatay waxaan la maleegay dalkii koonfur ka baxayay ee Soomaaliya ka baxayay 30 sano ilaa inoo soo xiro Soomaaliland loo soo raro deegaanadan loo soo xiro waxa la go'aamiyay 6 milyan oo Soomaaliland degan in xaabo iyo baatrool la isaga dhigo inteena iyo inta kale reer Soomaaliland baa la rabaa midnimo iyo wada jir inaan ka hortagno dadka anagu waa sahan tirnay tii 60kii aadeen garaad cali lahaa la ayaa garaad aad ku lahaydeen eedin laha ka jooga tiiba saarkeedin hay soo arag waxaan doonaynaa Soomaaliland ka miisaawanka oo ka macna badan inaynu inta dib isugu noqono inagoo walaalaa oo mid oo gacmaha ka saarsan dastuur xaafad bura ma intii nooleysay si qaldan u hadlaysay yaasiin xaaji maxamed waa qorayaasha dastuurka anigana waa awowgay 3 sano ka hor laascanad waxa ku soo kala baxnay awowgay yaasiin iyo mahad anigoo ka fikir duwan macnaha qadiyada kala go'a ma diidanayne adinka naga xanaajiyay oo saasaan kaga go'ay beelada laakiin Soomaali weynimo ma aaminsaneen gabadhaas xildhibaanad bay noqotay magaalada Muqdisho joogtay way timid maaragtay hadeer mid xildhibaanada su'aal la weydiiyo lagu yiri maxaa see u aragtaa aqoonsiga Soomaaliland yuhuudda siisay waxay leedahay garbe u leeyahay oo sabab baa keentay qudusiya kacbaduna waa lama taabtaan dad islaam ah baynu nahay laakiin wixii dadkii dhibaatooyinka heerka la gaarsiiyay in Soomaali gudaheedan wax iska weydiino waa wax wanaagsan marka idinka madaxdiina ay taa ku noqotaan wixii burburiye qabaa'il bay ahaayeen dadka Soomaaliland waa lagu dhibaatay dawladnimada iyo calankii ay keeneen in laga garaabo tabashadoodii iyo waxa ay tabanayaan hadda wali ismalihi Soomaali way si kala tagtay wali rajaa jirta lagu wada joogo idinka ay weydiinayaan warbaahinta maalin kasta anada dadkayga deegaanada gobolada waqooyi ka soo jeega su'aalaad weydiisaan idinku madaxdiina ma weydiiseen intay soo istaageen yiraahdeen calankii iyo dawladii Hargeysa laga taagay lagu keenay lagu dulmiyay shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha yiraahdeen waan baxaynaa Hargeysa aadana calankii iyo dawladda geena ma aragtay su'aasha sax la idinka baahay dadka madaxda ee deegaanada idinku matala inaad weydiisaan adigu ma weydiisay soo aan dhamaysto aniga ka gobolada waqooyi anigu aan ku matala Soomaaliland aaminsanay 100% oo kor aan u sheegaya oo hoos u sheegaya Soomaali aan anigu aanan joogin midnimana ma sheegan karto bariyaha waxa la isugu goodiyaa ana Soomaaliya hebel Soomaali ma war Soomaalimadu ma aha meel dadka lagu goodiyo lagu handada ma aha waxaan ku wada joognaa waa Soomaalinimo waxaan ku wada joognaa waa calanka buluug ee dawladnimada naga dhaxaysa anigu kaasaan keensaday dawladnimadiisa ku hoos nool jooga cidna magan uma yihi cidna marti uma yihi marka ma ku saxantiin Soomaaliland dadkeeda aadaan madaxdeeda aadaan dhanka Israa'iil inay aadaan wixii la geeyay Israa'iil aadaan loo soo weydiin mudan aniga Israa'iil aadaan ma ku qanacsani qudusiya kacbaduna waa lama taabtaan dad islaam ah baynu nahay laakiin wixii dadkii macnaha sababtii ay u aadeen baa jirtay wixii ku qasbaa jiray leedahay macnaha qadiyadii aaminsantahay waana xildhibaan maaragtay federaal ah sidaan la soconno maamulka waqooyi bari ayaa la aasaasay inuu maamul buuxa yaana waxaa sheegay madaxweyne xasan sheekh ka cadaynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka caddeeyo waqooyi bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale ee dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa meel xasaasi ah waqooyi bari madaxweyne xasan sheekh waxay ahayd inuu u horumariyo wax walba dhaqaalaha caafimaadka mushaaraadka tababarada qalabka in number 1 laga dhigo sababtoo ah waa qayb muhiim ah oo ka soo go'day qoladii gooni sutaaga ma sameeyay madaxweyne xasan sheekh lagama hayo sababta keentay inay xildhibaanadii goostaan iyaguna koodii ay maalinta taagnaayeen waxay kaga saxsanaayeen martisteen
labadii fikir oo midaysan baan maanta xalka ku taagan yahay waxaan leeyahay reer somaliland caqligu ha shaqeeyo cadiifada macnaha xasan sheekh maxamuud ayar buu u socdaa fursadda ay haystaan oo ay ku nool yihiin somaliland waa asaga maaragtay ma caqligiisa intaas ku eg ma siyaasad kalaa jirta oo reer galbeed iyo waxbaa ku jira meesha oo la doonayo in waddankaa la kala jaro way caddahay dadkan nala jooga kulligood waxay aaminsan yihiin soomaalinimo wasiirkii waa ka haddana waxaa jira waxaaba ka weyn nig meesha maalintii aan hargeysa ka imanaya cabdilqaadir guri weyn 2 baabuur iyo shaqaan haystay waxaas lahaa bal dadka isla doon isu soo dhaweey Soomaali waa tan xaaladeedii kala fogaatay bal caqli kale inuu iman karo macnaha marmarsiyo fara badan ayuu raadsanayaa oo dowladda Soomaaliya ku dhaleeceeyo uu yiraahdo dowlad xaq maaha dowlad feer maaha si uu yiraahdo wax waddanka waddan jira maaha una caytamay oo waxyaabo fara badan buu yiri waxaa ku soo haray kuwa hadda xildhibaanada ah haddeer ay leeyihiin dowlad jirta maaha oo ammaanka ma sugi karto bay leeyihiin meeshay oran lahaayeen dowladdu shaqo haysaa way dadaalaysaa sababtay u leeyihiin marka dowlad ismaamuli karta maaha oo wax qaban karta maaha waxay jaanis siinayaan oo caalamka ay tusayaan in somaliland aqoonsi la siiyo maadaama qoladan aysan ismaamuli karin qorshaha waa intaas dhanka kale xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda doorashooyin waa ku mashquulsan yahay wadamadii igad lama safna xaaladdu way adagta sideedii la muuqata idinka soo dhawaada mar kale halkan waa FCTV barnaamijkan waa barnaamijkeena waa tahay daawadayaal barnaamijka intaasaan kusoo koobaynaa Soomaaliya ha noolaato waxaan rajeynayaa inaad fahanteen in wax badan ay qarsoon yihiin wax badanna maaragtay Soomaaliya dhanka dowladana ay maaragtay naga qarsoon yihiin Somalilandna ay u dagaalamayso qaab siyaasadeed iyo qaab sirdoon labadaba ay ku raadinayso inay Soomaaliya dhexdeeda dowladda Soomaaliya ka dhex ugaarato soo dhawaada mar kale halkan waa FCTV